dugsiga hoose dhexe deegaanka Sibidhley oo ka tirsan gobolka Togdheer ayaa lagu kordhiyey dhismayaasha Galaasyo cusub waxaana Galaasyadan cusub hirgeliyay qurba joogta ka soo jeeda deegaankaasi Sibidhley ee ku midoobay ururka Galaasyo munaasabad kooban oo loo qabtay xarika jarka Galaasyadaasi cusub ayaa waxa ka soo qayb galay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta degmada Burco odayaasha iyo waxgaradka iyo sidoo kale dhammaan ardayda wax ka barata ugu horreyn waxaa munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha deegaanka Sibidhley Abdi oo ururka Galaasyo ay ku midoobeen qurba joogta ka soo jeeda deegaankaasi uga mahadnaqay dhismayaasha Galaasyadan cusub ee laga hirgeliyay deegaankaasi Sibidhley waana ku mahadsan yihiin boqolkiiba boqol bay ku mahadsan yihiin ilaa hablaha iyo ilaa inamada wax allaaleeyo wixii hawl galay boqolkiiba boqol baan wadiin mahad celinaynaa waa garateen dadkiinni iyo dalkiinni baa garateen gudoomiye ku-xigeenka deegaanka Sibidhley Cumar Faarax Raawo isagu gacanta dhismaha Galaasyadan cusub ayaa ka warramay marxaladihii kala duwanaa ee soo maray Galaasyadani laakiin waxaan leeyahay dadaalka halka ay ka qabteen dadka qurba joogta ah shacabkiina ay u diyaar yihiin dawladuna waxaanu jecelahay inay nagala qayb qaadato mar haddaan wax qabsanay in naloo kordhiyo naloo dayro iskuulka biyo naloo sameeyo maamulaha iskuulka oo saddex deegaanka Sibidhley Salebaan Yuusuf Faarax ayaa ururka Galaasyo ku amaanay doorka muuqda ee ka qaateen kor u qaadida tayada waxbarasho ee deegaankaasi labadan galaas qoliyay dhisado la yiraahdo hay'adan maxalliga ah ee Galaasyo iyo qurba joogtii dibadda ku maqnayd marka halkan saaka waxa loo yimid labadan galaas oo dhameystirmay Aqil Maxamuud Cismaan ayaa isaguna dhankiisa soo dhaweeyay Galaasyadan cusub ee lagu kordhiyay iskuulka hoose dhexe deegaanka Sibidhley waxaan kaloo salaamayaa qurba joogka soo dhisay iskuulka kan aad deegaanka Sibidhley aad iyo aad baan u salaamayaa waxa ugu horeeya Galaasyo oo gudoomiye u yahay Cabdirasaaq Ali du'aale aan halkan uga mahad celinayaa dadka ka qayb qaatay qurba joogta soo dhistay marka isku xil saaray waxa weeye maanta tacabkii maartay samayseen halkii ka soo saarteen ilaahay wax qayb qabayn ku bedelo gudoomiye ku-xigeenka degmada Burco Muuse Salebaan Aadan ayaa Galaasyadan ku tilmaamay guul soo kordhay deegaanka Sibidhley waxaan kaloo u mahad celinayaa ee ugu shaqeeyay ardaydooda waxbarashada iyo dadkoodii iyo dalkoodii iyagu maalkoodii iyo naftoodii iyo juhdigoodii siiyay yaanu mahad celinayaa ururka Galaasyo iyo qurba joogta Sibidhley oo gartay inay deegaankoodii wax ku celiyaan suurtana geliyay dhismahan ay maanta isugu nimay hoos joogo oo u soo dhaweynaya hay'adda dhistay gurigan aynu maanta xariga ka tarayno ee Galaasyo dadkii abaabulay ama waxqabadka keenay dhaqaalaha ama juhdiga maskaxdooda ka tuujiyay in hawshan ay qabsanto ilaahay waxaan uga baryaa miisaanka xasaarta ugu daro labadan galaas ee aan saaka ku darayno halka kan waxa dhisay dad rayida waxa dhisay dad deegaana waxa la yiraahdaa wax qabso haddii wax qabsato waxba lagu daraya dawladda waanu taageersanahay waxaan ku codsanaynaa iyaguna inay wixii kale naga dhiman insha Allah noogu daraan gabagabadiina waxa halkaasi si wada jira xariga uga jira dhismayaashan gudoomiye ku-xigeenka degmada Burco iyo sidoo kale odayaasha waxgaradka ka soo jeeda deegaankaasi Sibidhley Khaliil Barraawran TV-ga qaranka Somaliland magaalada Burco.